dhowaan waxaa isbeddelo lagu sameeyey madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska ciidanka hase yeeshee su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan joogaa ma u diyaarsan yihiin howlgallo culus oo milatari iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada amisom waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare cabdi maxamed dile madaxa macadka daraasaadka amniga soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho gaashaanla sare cabdulaahi cali macow iyo sheekh ibraahim aadan nadaara oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab hase yeeshee ka soo goostay hadalkana waxaa ku horraynaya gaashaanla sare cabdi maxamed dile oo ka jawaabaya su'aalahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgallo militari way u diyaarsan yihiin because waxaa weeye ciidanku mar hadduu qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisi haysto adowguna jiro ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaan oo kaleeto meelo ma anaga waa maqa way degan yihiin amisoomtu airport waxaas ciidamada inta badan ayaa keligood degan oo keligood howlgala goob kasta marka maaha in la yidhaahdo kuwan amisom hadday jirin howlgal ma soconay waa socdaa howlgalla amisom la-aan ciidanka howlgal waan u diyaarsan yihiin waa gartay waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi caqabado fara badan baa haysta ciidanka inkastoo siduu korneelku hadda inoo sheegayo ciidanku ay diyaarsan yihiin keligoodna howlgal ay geli karaan haddana wax xaqiiqa ah al-shabaab inay weeraro aada u culus oo kuwa milatari ah oo qaab milatari u habaysan ay ku soo qaado saldhigyadana ay kor marto iyadoo boqolaal ciidamada soomaalidu ay dhufays ku jiraan marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas haarun waa mahadsan tahay iyo waxaan salaamayaa asxaabta kale ee kuta dooda runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan qirto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana mar walba way noo sheegi jireen inay soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican africa marka laga eego dhanka howlgalka geesinimada iyo maaragtay way ugu fiicnaan jireen sooma wasiir adoo mahadsan adaa ku watay jireen haddana way ugu fiican yihiin runtii laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda gutaan caqabooyinka hortaagan waxaa kamid ah dhinaca taakuleynta ayaa kamid ah hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta runtii caqabadahaasi ilaa ay mudday jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka taakuleen ku fiican inaysan haysan gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan marka caqabadahaas mudday soo jireen ilaa ay haddana way jiraan laakiin caqabadahaas haddii loo dhamaystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan uu haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horeysa musharaadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgeli lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga haddii loo dhamaystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan al-shabaab cadowgana ka difaacaan qaranka soomaaliyeed runtii waayo cadowga aad ka hadlayso waxaa hore uga tirsanaan jiray sheekh ibraahim nadaara oo inagula jira khadka hadda wuu ka soo baxay garabkaas maxaan ku idhaha dowladda ayuu la joogaa maxay ugu suura gashay al-shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dul maraan ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan may ka tiro badan yihiin horta waa mahadsan tahay dagaal waxaa la yidhaahdaa waa khiyaano ma ahan dagaalku awood ma ahan dagaalku maxaa la yidhaahdaa tiro badni qof waxaad arkaysaa aad iyo aad u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabar yar ama markaad fiiriso la muruq ahayn maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa hab iyo xeelad ma ahan awood iyo tiro badni marka in saldhigyo intaa la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkay ka mid tahay iyo qofba ay weliba taasoo weliba calaaqa xoog la leh istikbaaraadka caskariga iyo meeshaan la weerarayo xogta laga hayo iyo dadka jooga kaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan hubka yaala naftarkiisa noocyadiisii waxa uu yahay tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii moralkooda siduu yahay gurmadka ugu dhow inta uu jiro iyo adig waxyaalo lamid ahoo ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay ama yaqaano si mumaaras ahaan ha ugu takhasusaano ama theory ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaan ba ugu takhasusaane wax u khuduucayo oo hoos tarayo waay laakiin saad tiraahdo say ugu suura gashay
intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo lala qabsaday watan hadda culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaacidiisa iyo wixiisii laba dagaalku mise waa fan oo mar walba duruufta iyo xaaladda markaa jirta iyo ragga markaa jooga iyo environmentiga markaa lagu nool yahay buu u khuduucaya hoos tagaya cilmi ahaan ay isku haystaan. Marka waa dad la qabsaday wajigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday, haddana radul ficli iyo jawaabo ka bixinaya. Dagaalka noocaasna waa dagaal loo yaqaano xarbul cisaabaadka ama dagaalka gorilaha loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaqda. Ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo. Ujeedkiisa kaliya ay tahay macnawiyaadka iyo moralka cadowga ka soo horjeeda inaad maxaa la yiraahdaa aad burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aad sugto. waa dagaal sidaasi ku salaysan weey muddana loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galana dareemaysaa. waxaan aaminsanahay anigu maanta in shabaabka iyo dawladdu ay dawladdu hub badan tahay markii si loo fiirsho. maxaa yeelay kuwan xagga kasoo jeedan waa Soomaali, kuwan waa Soomaali. waxa ugu weyn hadda maanta Soomaaliya lagu diriro waa taangiga. walina lama hayo beel shabaab taangi ay kula dagaal galeen, laakiin inta dawladdu ay haysato un bay iyaguna haystaan ama ha ka furtaano ama ha ka iibsadaano. laakiin waxa jira oo u dhaxeeya labada qolo. waxaan rabaa inaan siiyo Cornel Cabdi Maxamed Dilay sharaxaada uu bixiyay Sheekh Ibrahim Nadaara. maxaad ka dhigay? armaanta waxa weeye waa ku sheegay Sheekh Ibrahim Nadaara oo waa shabad gorilaha oo ku dhufo ka dhaqaaqa weyn, laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay ku xafidaan ay ku sugnaadaan oo ku xagsadaan ma qabaan. tan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye ma mid fadhida ma aha oo waxay ahayday meesha ay markaa aadayaan intay is-aruursadaan oo is-aruurtii kooyiraan laga keeno koojibooyinka laga keeno laga keeno koobayl kale iyo wax saasa ayay meel waxeeyaan. kadib malaha kalsoonoo ku dhufoo ka dhaqaaqna waxaan rajeynaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhanba inay soo dhamaato muddo dhow oo kooban oo sanadaha dhexdooda. dawladuna waa udiyaar, ciidamaduna waa udiyaar. calolada dila ciidamada ayaa ka adag waayo ciidanku waa nin isagu ku xidhan alihiis ayuu kuma xidhnaan leh degan. haddii hadda la yidhaahdo 10 nin oo ciidanka iyo 30 nin oo maxaan ku nimanka ayaga anigu magaca shabaabka in la yidhaahdo lamaba habboona oo shabaabka waa magac qurux badan diinla dagaalanka isma hor fadhin karaan. bal nin xeelanaysanayo oo shacabkii diyigida ku dhex milan yihiin habeen meel babaryaan qaabka halkiisa waa sax, laakiin ma isku dhigmaan runaanti. ciidankaas ka tabaroon, ka awood badan, ka muraal fiican, ka shaqo wanaagsan. arrinta ayada waa run. muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tab wey. haddee tabka ninkii dawladiisiyo kumbuleeda haysta oo nooc walbaba ah iyo ninka isagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaad garan kartaa ninka kule waxan maxaan kula guusha kule guula ninkan oo ma aqaana marka ayagu ay intay iska soo ordaan oo meel walbaxa badan ku jira soo xayaan guul oo ma arko. guushu waxa waaye inay meesha qabsato dabeed xagsato. dawladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna. waxaan ka hadlaynaa horta waa howlgalkayn ciidanku inay awood iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin. haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guuradii koobaad weerarkii ay ku qaadeen beriire cajalada ay ku muujinayaan. marka haddaan kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa beriire, waa beled xaawo, waa buula guduud, tiyaglo dhowr jeerba weerareen, agaarka gof guduud way weerareen, dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aad joogto ee koonfur galbeed. marka meesha ay weeraraanna dhibaato badan iyo dil badan dib u dhac weyn bay geystaan. ma aha intay weeraraan ay ka baxaan keliya, laakiin hub bay qabsadaan, dad bay laayaan. meesha weeraraan dib u dhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay kasoo kabtaan. dhowr jeerna way ku celceliyeen. macnaa tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka Soomaalida. dhowr jeer bay adeegsadeen. maxaa loogu diyaar garoobi waayey wasiir Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi? runtii horta diyaar garow ciidanka macnaha waa mar walba ay ku jiraan waa ciidan heegan ah, laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan al-shabaab la yiraahdo haddii aan la engage garaynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geynin oo loo weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama lagaga nadiifanayo deegaanada ay joogaan
waxaa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan, dib ay isugu soo xoojiyaan, isugu soo abaabulaan, oo sidaas oo kalena ay weeraro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan. marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaasi ugu jiraan. oo maanta waxaan aaminsanahay al-shabaab inay ku taagan yihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan, oo awoodii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxadda lahaa oo dhan ay kusoo ururtay meelo aada u kooban, oo awoodoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufo ka dhaqaa keliya, oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan. marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas, aan marna la joojin, oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin. midda kale waxaa kaloo loo baahan yahay intaas keliya weerarada ma aha, waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado al-shabaab ay dawladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka, waxbarashada, oo ay geyso boliis. oo saddex ka soo qaad magaalada Marka waxaa la qabtay baan u malaynaa Marka 2011 hadday ahayn waqtigaasaa la qabtay. laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer zone oo kale, oo marba inta laga qabsado haddana laga baxo oo laga qabsado. waxa u degi lahayn waxa waaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa, hay-adihii loo baahnaa, oo ay hay-adihii dawliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaas uga howlgelin, sida booliiska oo amniga sugadiisa qeyb weyn ka ah magaalada. in horta dawladda ay tusto wax ay u qaban karto, oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabadiidka ah, ay dawladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo, iskoolaadkii ay dib u dayactirto, jidadkii ay hagaajiso, oo ciidamo booliis oo amniga suga oo dad ka reystaan. waa inay ka reystaan al-shabaab oo aanay u darsan runtii. waay aad baad umahadsan tahay. barnaamijku waa faaqidaada toddobaadka. waxaa hadda inagu soo biiray Cornel Cabdulaahi Cali Macow. Cornel Cabdulaahi Cali Macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, hadda wuxuu madax ka yahay macadka daraasaadka amniga oo Muqdisho ku yaala. waa ku soo dhaweynaa mar kale. mawduucu waxa uu ku saabsan yahay dib u dhiska laamaha amniga ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada al-shabaab ay ka hortagaan, wiiqaan, wadankana xasiliyaan. gudaha joogtaa adiga daraasaadna waad ku samaysay. maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, dib u dhis lagu sameeyo? horta waxa waaye waa salaamaya mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhegaystayaasha. ugu horreynta horta waxa waaye insurgency, dagaalyahano gudaha ka dagaalamayo. markii aad la dagaalamayso, dawladda waa inay ka leedahay istaraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta in oo ciidankii la carbiyo, tababarka la siinayo oo noqdo tababar Soomaaliya. waayo aqoon-yahano naguma yaro oo maaragtay saraakiil aada u fara badan oo akademiga muxuu ahay wadanka jooga hadeertaan iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo. marka inuu noqdo muxuu ahay tababar Soomaaliya inuu noqdo. waayo dadka ajaanibta waxay barayaana yar in environmentiga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environmentka Soomaaliya. laakiinse wiilka in la qaado Riyaad markii lagu soo tababaro ama Suudaan la geeyo, waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxa la barayo inuu magaalada dhexdeeda oo practice uu ku sameeyo, meesha uu ku sameyn lahay Shangaan iyo Xamarweyne, soo amaankeeda u sugi lahay iyo Yaaqshiid iyo Hodan, ama deegaanada kale oo Soomaalida oo maartay iyo goboladaba. marka waxaad leedahay tababarka adoo hawsha tababarka in laga dhigo mid Soomaali leedahay iyo diyaarinta ciidanka. saasad weligeed sidaasay ahaan jirtay. ciidanka ugu horreeya gumaysiga markuu dalka ka baxay, ciidanka ugu horreeya oo la qoray wuxuu ahaa ciidan Cali Booba ee la yidhaahdo. macalimiintana waxay ahayn kulli Soomaali. ciidankii awoodda badnaay oo ilaa 150,000 gaaray waxaa tababaray Soomaali. waxa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen. saraakiisha markay soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxaa loo abaabin jiray ama dhaqankii Soomaaliyeed la bari jiray iyo discipliinka iyo xeerka aqaamta ciidamada qalab sido. asoo sarkaal oo 6 sano dibadda ku maqnaa ayuu 6 bilood oo maaragtay dib ayuu gali jiray.
marka waxaa wanaagsan ciidanka in maaragtay dawladda ay maaragtay ay u dayso saraakiil ciidamada xooga dalka ha buuxo, kuwo booliisa ha joogaan, kuwo nabadsuguda ha joogaan, ciddana caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta, laakiinse macalimiinta inay noqdaan macalimiin soomaaliya. aad baad umahadsantahay sheekh Ibraahim Nadaar. aan ku laabanayaa horta dadka ku jira dooda haddaan ku wada sheego Cabdulaahi Cali Macog waa wasiirkii hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, taliyaha howlgallada qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Korneyl Cabdi Maxamed Dile, iyo sheekh Ibraahim Nadaar hore wuxuu uga tirsan jiray al-shabaab, hadda uu ka soo goostay. sheekh Ibraahim Nadaar goordhaweyd waxaad ka hadashay xeesha ay adeegsadaan shabaabka si ay u dul maraan saldhigyada iyo ciidamada dawladda. waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka hadasho, maadaama shabaabna taqaano xeeshooda iyo waxay adeegsadaan, wax ay samayn karaan ciidamada militariga Soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan. waa mahadsan tahay. su-aashaas horta waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan. hal arrinaan rabaa inaan taanan ka jawaabin inaan ku laabto. xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda ah waa dagaal ka mid ah qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin. maxaa yeelay dawlado waaweyn baa lagu dumiyaa, weliba haddii asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato, laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama wakti dheer uusan soconin. laakiin haddii muqawimaadkiisi wixiis uu wato waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin. dagaalka weyn ee duulaanka weyn oo inta meel la weeraro la qabsado, cadowgii dhibaato badan loo geysto, wax laga qabsado, ciidana laga laayo, waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqda. maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay. arrinta koowaad, waktiga dagaalku dheereeya. waktiga dagaalku markuu dheeraadana reerka ama qolada tun weyn ama ciidan ahaan ama magac ahaan oo dawlad ah ama dhaqaale ahaan iyo dagaalka kulamaa waktigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonaya. markii cilmiyan aan u hadlayo si guud oo aan hadda hoos usoo daadegin, sababka labaad kaleeto uu dhib ku yeelanayo waxay tahay mubaadaratul qitaal waxa la yidhaahdo ama hogaanka dagaalka yaa waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufoo ka dhaqaaqda samaynaysa. waa 3 arrimood: goorta ay weerarka qaadayaan, meesha ay weerarayaan, iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya. marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah. weerarka kugu soo wajahan meeshu ka dhici doono iyo noocuu yahayna aadan fahamsanayn iyo goortuu dhici doono. marka labadaas sababoodba ma dhib yaraan karo. haddaan usoo daadego marka su-aashaada, waxa ugu weyn qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeelada cadowga marka ay isticmaalay inaad fahamsan tahay wey. oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii, waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsanaa. marka waxa ugu weyn arrinta looga hortagi karo waa maxaa la yidhaahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto, la qabsato, una diyaar garowdo sidaad u fashilin lahayd mise aad uga hortagi lahayd ood isaga celin lahayd. waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa intaa. waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada Soomaalida ama dawladda ma u diyaarsan tahay waqti xaadirkan? kolley ninka hadda taliyaha qaybta 6aad iyo ragga shaqada hadda ku jira garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii yaan filaya inay jawaabtu aad iyo aad uga habboon tahay iyagoo inay ka jawaabaan. madaxa howlgelinta qaybta 6aad Korneyl Cabdi Maxamed Dile, tafadal bal su-aasha ka jawaab. qodob muhiim ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qaybtiisii sirdoonku ma dhisan yahay? waa dhisan yahay ciidanku qaybtiisa sirdoonka. horta waxa cid kasta oo dhisan oo jirta waxaad ogaataa dawladana waa dawlad tabaryar, waa dawladeena waxa weeyo weli haddii isku filaan badan ay jirto ciidamada ajnabiga ay nooma joogaan. kullama sidaa jirto hay-ad kasta oo dhisan waxay way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman. bal marka usoo noqdo midaan mukhaabaraadku waa dhisan yahay, sirdoonku waa shaqaynaya. inta badan waxaa fara badan oo wax jira ah waxyaabaha qofka bini-aadanka qof duunka ku jira iyo waktigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladiisa waad garanaysaa. nifaankiisuu sheegay maxoo kaleeto inta la fashiliyaa ka badan, inta la fashiliyo ayaa ka badan. oo dee samtigna waa kaa siiban karaa
wixii kaasoo baxsada inaad diyaarna waa loo yahay in loo noqdaa muhiima taasna diyaar laakiin ciidanka sirdoonka waa dhisan yahay ciidanka muqaabalada waa dhisan yahay bal waxa weeye in la sameeyo oo dowladda ku kala jirtaa waxa weeye nimankan ma aha cadow meel kale ka yimid fikirka iyo moolini meel kale ka socdo bal waa dad Soomaali way dadka horta hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamada waa weli waa sax oo laga la Soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo tareerinkooda wax loogu sheego waa sax oo ciidanka la wadaajiyo waa sax waayo laba askari mid iyo xagga mid geedka bidix inuu ka gala mid ka gala mid orod ku galo mid saas loo soo baray waxbaa ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxaa waaye nimankan ma aha baysas meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xogta ku hayno waan ognahay mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la soconaa oo ciidamadu waa la socdaan ama dawladdu waa la socotaa bale waxaa weeye is-aruurtii wax layla ku sameeyaan waxaa dhiman oo dawladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidanka jiro hal mar la wada hawlgeliyo o dhaqaajiyo hal meel amar ka soo baxo hinaabi la yidhaha marka oo qaabkaa loo dhaqaayo intaasaa dhiman haddii se ay sidan sii jirto de nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulki waa miyigii dawladda dhulkooda ma wada degana kabacdii dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in la egbayleyn ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqsan lasoo afjaro waaya qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin macow inaan weydiiyo qiimeyn ay dawladdu ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha ka soo baxay waxaa ka mid ahaa 30% oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beela leeyihiin ama beela sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan goboladii wada keenin inaan weli la isku dhafin tababarkoodii aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas horta taasi waxa waaye waa istaraatiijiyada amniga qaranka istaraatiijiyada markii la dejiyo oo bugaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada kasoo baxayo buuggii la qoray in lasoo gaarsiiyo muxuu ahaaye taliyaha markay ka timaado taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qaybiyo kadibna muxuu ahay batalyanada loo qaybiyo sidaasi maaragtay ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyey go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waaye ciidan waxaa la yidhaha ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad umalaynaysaa in maaragtay ay ciidankii ou noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo frontiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoydo uusan lahayn marka taasi waxa ay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay uu banaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino u baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan dawladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ahay oo waayeelka usii socdo inna la yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarmo waayeelkina caqligii iyo xirfadii iyo farsamadii iyo aqoontii u haayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhalinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbino inay maaragtay dalka iyo dadka iyo dawladdiisa ay difaacaan kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka waa inuu nasto ciidanka markasta inuu maaragtay oo fronti taagnaado dhibaatay keenaysaa waxaa ka imaanaya discipline xumo ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay in oo awoodda koowaad la saaro mudnaanta koowaad ay noqoto awlawiyaadka ay noqoto oo raashinkiisa oo helo oo daawadiisa oo helo oo maaragtay chain of commandaha iyo ismaqalka iyo wadalahaanshaha shaqo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aad maaragtay concrete oo maaragtay adag oo xidhido adag inay ahaato waay waayo aad baad u mahadsan tahay su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi waxa weeyaan
labadii sano ee ugu dambeeyey wax ka yar 2 sano ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxa soo maray 3 taliye kii saddexaad baa maalin dhaweyd la magacaabay wasiirada gaashaandhigga kii saddexaad baa beri dhexdaasa la magacaabay laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameyn ay ku yeeshaan dhismaha ciidanka waa mahadsantahay Haarun waa su'aal aad u fiican runtii dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka iyo geedi socodka dowladnimada iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay sixid iyo eegis ama dib u habeen la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha marka dhinaca kalena markaad ka eegto waa madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada in waqti la siiyo saraakiisha fursad iyo waqti ay ku shaqeeyaan la siiyo oo ay amnigaasi long term ama waqtiga fog ay maaragtay istaraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo wax oo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda uu sheegay dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay sida oo hadda generaalada dhawaan la magacaabay isbedelkii dhawaan ay dawladda ku samaysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbedel runtii dhamaystiran oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay iyadoo isla markaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysaa waqti iyo waxaa ku baxaya ma aragtay efforts fara badan waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo marka hore aada looga fiirsado qofka la magacaabayo marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii waayo waxaan rabay waan soo gabagabeynayaa dooda si aysan usii dheeraanin waxaan rabay inaan siiyo Cornel Cabdi Maxamed Dile qodob in ciidanku ay helayeen mushaharkooda intii dawladdan cusub ay xukunka qabatay waa la helaa taas alxamdulillah waliba bishu markay dhamaato ayadoo dhamaanin baa la helaa wixii ay ugu kala gashay dawladdu oo gunadaha mushaarkii raashinkiisii ilansi waa la helaa ciidamadu way helaa intay dawladdan ay qabatay xilka la wareegtay taas ayada aaminsanaysay waa okay waay marka barnaamijku waan soo gabagabeynayaa haddaan ku siiyo adigaba kugu bilaabo Cornel Cabdi maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan taliyaal ahaan maxaad talood u soo jeedin lahayd dawladda iyo dadka Soomaaliyeedba dadka Soomaaliyeed aan ku hormar dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa in ay raadiso ay ka go'naato la shaqaynta ciidamada iyo hay'adaha amniga taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo nolosha dhan ay ku imaata waxbarashadii caafimaadkii iyo maxaan ku rahdaay ay ku imaanaysaa inay gacmaha isqabsadaan ciidamada hay'adaha amniga iyo shacabku iyo bulshooyinka Soomaaliyeed taasaan soo jeedinaya tan kale dawladdu waxa weeye way og tahay wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhimanaysa oo dhamaystirtaan rajayna insha Allah say u ballan qaaday ee looga sugo insha Allah taala wax badanna ay soo way samaysay wixii kalena inay israacsato oo dawladda ay ku talagasho in ay dhamaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saanadeed ee ka dhiman waay Sheekh Ibraahim Nadaara maxaad ku talin lahayd gabagabadii waad mahadsan tahay waxaan rabaa intaanan talada gelin laba qodob oo hadday aan ilaahay inaan ku daro oo ahay natiijadii xarbul cisaabaadka ama dagaalkan ku dhafo ka dhaqaaqda ah aan isleeyahay bedelkan ciidamada madaxda iyo wasiirada iyo adiga wixii laama amniba khuseeya natiijada ugu dambaysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed laana haddii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waqtigu dheeraado dhiigbax dhaqaale mid ciidan mid siyaasadeed intaba la daalo daal baa imaanaya marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo oo ila mid wal mandate buu leeyahay qoladaana mandate ma leh waqtina kuma socdo marka waan waxa ugu weyn ay ogadan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istaraatiijiyadii awal ku degsanayd iyo qorshihii aalahayd oo dhan aad dib ugu noqoto sanad walba si waqtiga marka dambe uu kaaga dhamaado haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed jiid aan ku jiida gacmo daalis iyo waqti dheeraada marka waxaan ku talin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran waxaan yawmiga dhacaayo
weligood way soo socdeen muddadii 10 sano hadda u dambeysay wayna sii socon doonaan. routine baa la yiraahdaa. routiniyaadku inaan waqtiga lagu lumin, waqti faraaq lahoo gaar ahoo lagu fakero, istaraatiijiya lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fog intaba leh. cadowgaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fakerayay iyo cuquusha madaxdiisii iyo dhinac walba inaad loo fakero. lianna markii istaraatiijiyada ciidan la diyaarinayo owhaam wax laguma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba siduu jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqicana ku fasiro, waaqicna uu ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaalo, dhibaato badanna ay taalo, lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda. marka in maskax fiyow lagu fakero, la fadhiisto xaaladda jirta, caqabadaha wax walba la diyaariyo. caqabadii markii la helo oo tashkhiis lagu sameeyo, la baaro, iyo dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la cilaajiyana markaas ay imaan kartaa. laakiin routinigan haddii la dhexdoodo oo marna xamaasad ku qaado, marna niyad jab, marna aad qosasho, marna aad ooyso, marna aad baan isku akriso, waqtigun baa kaa lumaya. intaasaan ku talina. waaye Cornel Macow. horta waxa waaye anigu waxaan aan dadka Soomaaliyeed oo waxgaradka aad ay u necab yihiin waxa corruptionka la yiraahdo ama musuqmaasuqa. cadowga aan la dagaalamayna argagixisada waxa ka xun corruptionka ka xun. waayo ciidanka dhaqaaqi lahaa oo maaragtay dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka. dawladana haddeertan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aad ayaan maaragtay dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka bay usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo. dadka mas-uuliyadda ay u dhiibayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano in lala xisaabtamo. waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasna daryeelkooda maaragtay ay u diyaar garoobaan. waxaa jira masal dhahayo oo caqiidada militariga ama ciidamada ku qoran, haddii uu ciidankaada uu gaajoodo ama markii ay dhibaato ay ku dhacda aada dabooli weyso, taasi waxa waa bilowgii fashilka. waa inaan shaqadaas kaga tagto. marka dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed. waxaa la dilayo waa wiilashoodii, waa gabdhahoodii, maalin kasta hantidoodii iyo guryahoodii la qarxinayo. inayan dheelsanin oo ay maaragtay dawladda bas aysan ka sugin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay Soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qayb galo si dalkayna iyo dadkayna aan xasilooni u heli lahayn. waaye hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi, taladaada ugu dambeysa. waa mahadsan tahay. dawladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo waqti badan runtii oo amniga ahna ma jiro, sababtoo ah ciidamadan AMISOM weligood ma joogi doonaan oo waqtigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlaya. marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan AMISOM hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in al-shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto, iyo in hadda amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dawlad keliya ma sugi karto runtii, iyo ciidamada keliya ma sugi karaan. amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacbiga Soomaaliyeed. marka shacbiga Soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dawladda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay, iyo haddana inay ay taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan, ay la shaqeeyaan. taas ayaana ku imaan karta runtii amni. waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida danab oo kale, oo runtii hadda tiradooda wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen. aadna waa runtii loogu bogay hawlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen. marka waxaa loo baahan tiradaas in la kordhiyo iyadana. intaasaan ku talin lahaa. barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaa. waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, taliyaha howlgelinta qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanla sare Cabdi Maxamed Dile, Cornel Cabdulaahi Cali Macow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga, iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab balse ka soo goostay ururkaasi. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.